xildhibaan maxamed cali dheere oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa shaaciyay in mar labaad u tartami doono doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Berbera. Munaasabadda xildhibaanku ku shaaciyay musharaxnimadiisa ayaa waxay ka qabsoontay deegaanka Laaleysa dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Berbera, waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay, dhalinyaro, cuqaal, salaadiin iyo haween. Xubno kala duwan oo iyagoo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa waxay tilmaameen in xildhibaanku uu qalmo in mar labaad ay u codayso bulshada ku dhaqan gobolka Saaxil. waxaan la hilmaami karin oo goobta si weyn uga dhex muuqanayay dumar hal abuuro oo iyagu tiriyay maansooyin iyo buraanbur kala duwan oo ay ku taageerayaan musharaxnimada xildhibaan maxamed cali. qabtay waxyaabo la taaban karayo oo arrimaha bulshada ah. kow Laalays may lahayn meeshay gabadha umuraysa ee dhigbaxa u dhimanaysa intaas oo kays baan haynaa oo dhigbax u dhintay halkan Laalays inta ka hor. arrinkii waxa weeyaan xildhibaanka iyo golaha deegaanka iyo duqa magaalada Berberiba waxa weeyaan arrinkaasi weyn nagala shaqeeyeen, xanaanay noo dhiseen dhammaystiran oo shaqaysa. waxa kale oo maxamed cali wax nagala qabtaa waxa weeyaan arrimaha bulshada ee kale. laba kalmood kooban ayaan ka oran doonaa xildhibaanka iyo taariikhdiisa. xildhibaan maxamed cali xaaji axmed xuseen wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada ku soo kacay magaalada Berbera, dugsigiisa hoose iyo dugsigiisa dhexe ka baxay dugsiga Saaxil ee magaalada Berbera, dugsigiisa sare ka baxay Bursada Secondary School. inta kadib uu boqolay kulli dalka dibadiisa si waxbarashadiisa iyo aqoontiisa u soo kobciyo. laba jaamacadood ka soo dhameeyay dalka Malaysia oo lagu kala magacaabo digrigiisa kooda wuxuu ka qaatay jaamacadda lagu magacaabo Unit College International. halka waxaan u joognaa shaacinta musharaxnimada mar labaad maxamed cali xaaji axmed. anigu hadalka laba kelmadood baan ka odhanaya. labada kelmadood waxa weeye waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarta reer Berbera. waxaanu diyaar u nahay reer Laaleysow. maxamed cali maanta wuxuu inooga baahan yahay cod. degmada tuulada Laaleyso kaliya maaha, degmada Berbera oo dhan baanu uga baahnay. annagoo idin weydiisanaynaa oo idinka codsanaynaa inaad codkiinana siisaan. waxaan u salaamayaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay anigu ka shakhsi ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan iyo ka hal abuur ahaanba inuu maxamed mar labaad stagekiisa soo taago, dadkana u sheego inuu murashax mas'uul adiga ahoo dantana meel marin karee miyaan kaa maagaynaa mar kale waad mudan tahay. mugiyo miisaanilla bulshada meel marin karee miyaan kaa maagaynaa mar kale waad mudan tahay. makhluuq kuu heelanba meeqaan kula doonaye miyaan kaa maagaynaa mar kale waad mudan tahay. marna waa qalfad soo kacay guulaamo walac tidhi hogolo calaan walaysiyo horseed lagama waaye sawaaqa Laalays waa beriga kuma diin. sawaaqa Laalays waa beriga kuma diin. waa araar ay la soco, waa hal door ay la soco, waa araar ay la soco, waa hal door ay la soco, waa muwaadin ay la soco, waa nigeesi ay la soco. taa waxa ka dambeeyay oo taanu xildhibaanada golaha deegaanka 3 nin baan tuunsanahay, inta kale waan ku kacsanahay. hoota maxamed waa dadkan tuunsanahay aan aad ugu hanweynahay inanka magabaad in deegaanka Saaxil iskugu tagto hayb kastaba ha ahaato inanka loo booqiyo in magabaad ugu celino codkeena daacadnimo u siino yan wataan uu ku kasoonahay. reer Laalays macnaha tani waxay u tahay fariin cad oo aan macnaha laga gaban karin oo aan laga dhuuman karin. waxa weeyaan xildhibaan maxamed cali in mar labaad u codayno diyaar baan u nahay. dhalinyaro cid walba leh xildhibaan maxamed cali waa xildhibaan waayaarag ah, waa xildhibaan iska soo shaqeeyay golaha deegaanka, ma aha xildhibaan ku cusub oo iminka qofku cusub aan dooranayno. waa xildhibaan dhalinyaradii iyo dadkii doortay iyo bulshadiisii u hagar baxay. maanta waa maalin weyn oo ku suntan siyaasadda iyo himilada maxamed cali xaaji axmed. waxay iskugu soo baxeen bulshada intan la eegay ay maqraati ka yihiin inuu wax u qabtay oo deegaankii iyo degmadii iyo dadkii uu ka soo jeeday inuu wax u taray. diyaar ay u yihiin inay ku celiyaan. maanta maxamed cali xaaji axmed ma wataan oo keliya
dadkii ehelka u ahaa ama beeshii uu ka dhashay oo keliya maanta beesha uu ka dhashay waxaa keliya oo marti looga yahay inay u codeeyaan xildhibaan maxamed cali xaaji axmed gabagabadii xildhibaan maxamed cali dheere oo isagoo halkaasi hadal dheer ka soo jeediyey ayaa waxa uu mahad celiyey dadweynihii hore u doortay sidoo kale waxa uu ka codsaday bulshadu inay mar labaad u codayso waxaan idin weydiistay 7 sano iyo dhowr bilood ka hor geedkan hoostiisa in ay doorataan oo ay doorataan golayaasha degmooyinka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland way doorateen sidii bani aadmiga ugu mudan loo dooran jiray ayaa iigu sareysiiseen oo aniga oo daayara ayaa ragga iga hormarisan waan ka mahadnaqayaa abaalan ilaawi karana maaha jaranjarteedii ugu horeysay kuma simbiriraxan waxa ahaydeen qoyaan kasto la dhigo roog kasto la iga hoos saaro dadkii isu dhigayay ee baritaarayay ee iga gudbinayay marxalado badan oo hankayga ka horimanayay su'aal baa isweydiin leh su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan maxamed cali waynu doorannay golaynu geynay golihii aynu geynay muxuu uga sii gudbi waayey oo uu doorasho golaha dhexdiisa u geli waayey dalkeennu duruufooyin badan oo ka jira ayaa waxaanay sababayn inaad golaha dhexdiisa ka tartanto qarankeennu sida uu maslaxadda u arko ayaa qof kastoo hanlina uu la arkaa tartamada golayaasha deegaanka dhexdiisa ka dhaca waaqica dalkee jira bay la guuraan waaqica jira ayuu baan uga dhex tartami kari waayey oo mas'uulka golaha deegaanka duqawwa waanu la shaqeynaa waayarnimadayda iyo aqoontayda oo aanan waxba ka agna baan kula shaqeeyaa golahayga oo aan kaga mid ahay oo aan fikradayda iyo doodahayga uga dhiibtaa oo aan deegaankayga iyo deegaano kaleba ku gaadhsiiyaa aragtidayda iyo waxqabadkayga nasiibka aan golayaasha deegaanada ama mudanayaasha golayaasha dalka aan dheerahay wuxuu yahay siyaasigu markuu daayar yahay lugaha la qabtaa waa la suuldaareeyaa siyaasaduna ma aha keeg la jarayo oo afka la isu gelinayo oo la isu hadiyeynayo way hadimo badan tahay way tuqaantuqa badan tahay laakiin anigu waxaan ahay siyaasiga keliya ee daayarka ah ee haddii mid ay isku hayb yihiin uu yahay iyo haddii mid ay saaxiib yihiin uu yahay iyo haddii uu hooyo aan isaga dhalin ay tahayba roog baa lay dhigaa soo dhoweyn baan helaa garbaha lay qabtaa waa lay taageeraa waan ka mahadnaqayaa intaasoo nasiib oo ilaahay igu galladay deegaankayga iyo bulshadaydaba mahadnaq baan u hayaa maanta haddaba maxaan idiin sheegayaa reer laaleysow maxaan idiin sheegayaa dhallinyaradii magaalada berbera ee saaka ka soo jarmaaday maxaan idiin sheegayaa guud ahaan bulshada reer saaxil ee magaalo madaxda aan golaha ka ahay ay ka dhisan tahay waxaan idiin sheegayaa maanta shalay tolo rajaan idin tusay dhallinyaroy waxaan idin tusay inaad tartami karaysaan baan idin tusay waxay igu tijaabiseen meel halisa oo ninka dhallinyarada haddii uu ku simbiriraxdo uu cuqdad qaadayo oo waad dhacdaydo xanuun ka qaadayo ayaa igu tijaabiseen oo waan ka gudbay maanta waxaa ii muuqatay dalka golayaashiisa waxaa ku tartamaya dhallinyaro inaan ahay shakhsiga ugu mudan inaan ahay shakhsiga ugu waaya aragsan inaan ahay shakhsiga aan isleeyahay maanta wuu idin hoggaamin karayaa waxaan idinka codsanayaa ciddidaas in la cabira baa idinka hadhay in dhallinyaro dalka ay hoggaamiso marka koowaad aniga hinjiskii labaad baa ii hadhay riixa marka aniga ay gudbisaan way idiin bannaan tahay halkii aniga iga qaadeen ee ay iga riixdeen tartamadu way turxaan badan yihiin laakiin anigu mid bilaa turxaana oo aan nasiib u helay ayaa igu berber istaagteen
markii ay soo idlaatay munaasabaddu waxaa xildhibaanka loo soo gelbiyey dhinaca magaalada Berbera iyadoo ay arkaysay gaadiid tiro badan oo galbinaya xildhibaanka waxayna dhex qaadeen jidadka waaweyn ee magaalada Berbera waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul goobjoog TV Berbera